in la afduubtay nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Liibaan Aadan Cali ku magac dheer Liicaato ina xaawo daahir qeyr 28 jir ah ku dhashay xamar degana degmada Howladaag sida la sheegay afduubka loo isticmaalay in baraha bulshada lagu faafiyo ayaa loo isticmaalay gaari nuuciisu yahay baraado oo cad iyo gaari kale oo ciidan oo nuuciisu yahay gaariga Cabdibilaha Soomaalida u taqaano kaas oo qalqal badan ku abuuray shacabkii ku dhaqnaa gobolka Banaadir iyo gaar ahaan ehelada Liibaan oo hadaba nala taagan ciidamada ammaanka oo hawlgal fuliyay looga jawaabay arintaas isla markaana lagu xaqiijinayay amniga iyo xasiloonida magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo guud ahaan dalka oo dhan ayaa fuliyay hawlgal saf balaaran ah si gacanta loogu soo dhigo hawlgalkii ciidanku ay sameeyeen ayaa gacanta lagu soo dhigay Liibaan oo bad qaba oo wax dhibaato ah oo jirkiisa ku yaala aysan jirin isla markaana sida asagu afkiisa uu ka sheegay aysan jirin wax afduub oo haba yaraatay loo geystay laakiin ay ku dhacday isfaham darro cilad xagga ka timid telefoonkiisa iyo reerkiisa iyo yarkii bajaajlaha oo soo qaaday inta kadib magaalada Muqdisho oo amnigeeda ay iska kaashanayaan dhamaan ciidamada ammaanka iyo shacabka Soomaaliyeed oo isku duuban ama isku garab ah ayaa sugay ama xaqiijiyay amniga caasimadda iyo nawaaxigeeda sidaas daraadeed waxaad moodaa in dhawaalaaba inay jiraan sheegashooyin ama cabasho la halmaala in dad la afduubtay intooda badanna ku soo dhamaaday warar been abuura oo sal iyo raad toona lahayn annagoo taa ka duulayna waxaan shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Banaadir guud ahaan dalka oo dhan iyo daafaha caalamka ma ogeysiinaynaa inaysan haba yaraatay jirin wax afduub ah oo si bareer ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo nawaaxigeedaba ka dhici kara maadaama ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan guud ahaan ciidamada qalabka sida jamhuuriyaddu ay hoyloon yihiin ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta hase yeeshee aysan jirin cid haba yaraatay laga yeelayo inay dhibaatayso sumcadda sharafka nafta iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed hadii cid loo ogolaanayo inay shacabka Soomaaliyeed dhibaatayso dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed isku duuban qawaarijta lama dagaalameen sababta qawaarijta ula dagaalamayno waa in loo arko inay dadkii dhibaato ku yihiin marka cid loogu dul qaadanayna ma jirto ciidankuna waajibaadkooda ay gudanayaan mana jiraan wax dhibaato ah oo hadda Liibaan oo nala taagan uu qabo isagana kulli afkiisa ku hadli doona soo dhaw Liibaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهان صومالي محمد مالك استوى إي دبد أتك جوكتان أنا أقول لبان هذا عليا أو يهوري تاجن وحيد الله هاي سلامة السلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كود هو روحنا ومهد علنا دمان لامها أمنية عيدن كبوليس قيبوه كل دوجن سيدوك الواحد ومهد علنا تلي إسماعيل هذا أم حسن تاكلنا هاي ذلك بلارن عن موجسي سيدوك الولالك تلي مرسهل بوليس ملتاري أسجنا أنت ذلك بدن موجيوان أم حسن تعالى هاي وحاربا إسفهم ير دري أيا دعدي أو أها تليفون كي أو يجدن سنة يو أبايو أو جوري مركزي كم غنيت iyo dhalinyaradan markaan mid saaxiibkay oo aala balansanaa asaga gaariga baradada watay oo asagana ciidanka isla socdeen sidoo kalena warkan been awurka oo booliis military laga sheegana war been ah oo baraha bulshada loo gelinayo ciidanka lagu fadeexeysanayo iyo ciidanka booliiska oo dhan anigana waan caafimaad qabaa oo waad ii jeedin wax afduub ah oo la ii geystay haba yaraateen ma jiro laakiin wax yar oo waxa dhacay maadaama teleefankayga uu dansanaa teleefankii oo bajaajlaha ayaa walaashay ka wacay marka guriga soo istaagay waana sugaya gaarigan asagana baradada ah iyo ciidanka ba isla socdeen markaasi waxa dhacday gabadhii walaashay teleefanka bajaajlaha marka ka wacay inaan abaayo furaha ii soo tuur markaasi waxay igu dhahday waa ka maqanahay guriga maadaama ay dhahdo guriga waa ka maqanahay isla marka ayagan sugay way ii imaadeen markay saas igu imaadeen marka mid dhalinyarada kamid ahaa ciidanka marka hadal kaftana igu tuuray oo ahaa maanta waad xirantahay camal marka bajaajlihi eraygu marka si qaldan u fahmay anigana bajaajlihi aan macsalaameyn oo teleefankeygana aan u safe gareeyay ugu horaan markaan soo shitaan ku soo tuuraya si degdeg ah markii aan ku baxay maadaama bajaajlaha asagana oo mas'uul ka yahay nafsadeeda oo asaga aan bajaajkiisa aan soo raacay eraygu marka si qaldan u fahmay saas ayuu wuxuu u wacay gabadhii walaashay ahayd oo markii horeba asaga aan ka wacay teleefankiisa wuxuu wargeliyay in aniga afduubto liiwat intaas dhacday wax afduub ahaan ma jirin walaashayna ayadana maadaama meel igala soo xiriirtay ay weysay teleefankeygana uu dinsanaa saacado badan abaayadina halkan ka raali gelinaya ummadda Soomaaliyeed hooyooyinka maanta naxay Liibaan Aadan Cali oo in hor taagan yahay ciidamadii booliiska hor taagan afayeenka booliiska in hor taagan tali Ismaaciil ay hor taagan waa caafimaad qaba waana mahadsantiin insha Allah taala wax afduub ah oo liigisto bareera ma jiraan
afhayeen waxaan rabaa inaan hal su'aal ku weydiiyo inta badan waxaa jirto sidan oo kale markay dhacdo dhacdadan oo afduubka ay yiraahdaan oo lagu marin habaabiyo bulshada taa oo markaasi inta badan lagu sheego ama ba aan aragno dadka la afduubtay ama dhibaato loo geeyo lagu hayo dadka caanka oo kale u badan yihiin bal bulshada marka laga tago faamilka saameynta ay ku yeelan karto ka boolis ahaantiina idinku mar walba feejignaantiina iyo waliba doorkiina ku aadan ilaa intuu gaarsiin yahay waa maasantiin bahda SNTV dhammaan saxafiyiinta oo dhan ka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ahaan ama ciidamada kale ee ammaanka ee jamhuuriyadda ay leedahay waajib culus ayaa naga saaran ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed hal qof oo muwaadin Soomaaliyeed wax la yeelana dhibaato aan maxay ahayd baaxadeeda leh ayay nagu reebtaa ma malaysan kartid maanta markii aan maqalnay in magaalada Muqdisho gudaheeda lagu afduubtay inta aysan social media soo galin ayaanu xogaha ciidanku isweydaarsado ahaan ku ogaanay arintaasi marka waxay noqotay waxyaabihii dadka lagu qalqalin gelin jiray ay qayb ka noqotay laakiin tani waxay u dhacday cilad isfaham dari yari awgeed ay isfaham dari telefoonada dansanaa isfaham yari darteed ay ku dhacday hase yeeshee ummadda Soomaaliyeed shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir dalka oo dhan waa ku baraarugsan yihiin waana la socdaan in falalka noocaan ah sideedaba laga hortago lana dagaalamo falalka noocaana aysan u ogolaanin shacabka Soomaaliyeed inay ku dhacaan marka ciidamada ammaanku waa u feejigan yihiin shacabkuna waa ku feejigan yihiin waa u dhiiran yihiin dadkiisas hore noocaan oo kale galay oo afduub galay baa jira oo maxkamadaha awoodda u laan ku sinay kuwa brank isticmaalay baa jira oo maxkamadda awoodda laan ku signay laakiin kana ku nooc ma ahayn sidaas faham darradii yaridaas awgeed ayuu u dhacay marka ciidanku waa u feejigan yihiin qaybihiisa kala duwan shacabka Soomaaliyeedna markasta gacan ka helnaa ma santiin mahadsanid afeen hal su'aal kale aan ku sii raacinayaa inta bansaad hadda aad sheegtay oo kale waxyaabaan la yiraahdo brankiga يعني وان دريمي كرنا قف والد هدي وكارك قف مركز إسقى جركيس كسوق أي أولي هذه والله أفضل أم عقبات بولا كل ماي وأنت بدنا ما أنت إنه أرجع نود الإنجيل الصوماليات بدون كودو برانكي وحياة عن معنا لهين يكون سمينا بلتاي أيضا محطك أوران لهيد برارجنت بولشة أدو دوري لهيد محيط هاي وما سنتين بولشة الصوماليات وعي وذو كل وادي سنة هاي برانكينا للإنجيل أما جنريشن كمان تجرى مدة الصوماليات ونمرك أوبدان أيار الإنجيل كجوكتا caalamka oo dhan waa wax ka wada jira oo iska waadax oo meel kasto caalam kamid ka dhaca dhalinyaradu waa isaga madadaalaan social media-huna as globalization kama adduunka maanta hal guri isku noqdaan hal qol isku noqday ayaa sabab u ah brankuguna negative-na waa leeyahay positive-na waa leeyahay dhankiisa positive-ka ah ayaa inta badan dhibaato ku ah waalidiinta iyo dadka aan maxay ahayd wacyigooda la jaan qaadin dhalinyaradana waxay isaga isticmaalaan si madadaal ah laakiin ayagana meelaha channelka aan u marino warbixinada ayaan ku gaarsiinaa dhalinyarada Soomaaliyeed social media aadka ugu xiriira ama isticmaala ama ku tacalluqa waxaan ku wargelinaynaa inaysan waalidiinta iyo dadka ku qalqalgelinin oo ayaga oo waqtigooda entertainmentigooda qaadanaya haddana ay ilaaliyaan wacyiga dadka waalidiinta iyo sawirka magaalada Muqdisho iyo dalka oo dhan ay ka bixinayaan waxyaabaha qaarkood oo ma santiin aad ma santaa fayeen